dagaalkii socday 1977 ilaa 1978 ee dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya. madaxdaasi waxaa ka mid ahaa hogaamiyaha dalka Cuba ee la yiraahdo Fidel Castro iyo saraakiil isaguna ka tirsanaa dhinaca dalkii la oran jiray waagaasi midowga Soviyeeti. haddaba marka aynu u soo noqono dagaalkii dhinaca Soomaalida sarkaalkii ugu sarreeyay ee dagaalka hogaaminaya waxa uu ahaa General Maxamed Cali Samatar ama sarreeye guud Maxamed Cali Samatar oo isagu ah ninka Soomaaliyeed ee darajo ciidan halka ugu sarreysa ka gaaray oo aan shaki ku jirin in badankiinu aad wada garanaysaan marka laga reebo intii garashadoodu ay indha dilaacsatay dhowr iyo 10 sanadood ee ugu dambeeyay. haddaba waxaan suurta gashay inaan waraysi la yeelno General Samatar oo haatan isagu ku nool wadanka Mareykanka oo aanu filanno in dad badan oo na dhageysta ay aad u dhageysanayaan oo ay ugu dhagtaagayaan waxa uu oran doono General Samatar sababtoo ah xogogaalnimadiisa iyo doorkii muuqday ee uu kaga jiray dawladii Soomaalida ee xukunkeedii u dumay sanadku markuu 1990 waxyaabaha aanu wax ka weydiinay waxa ka mid ahaa dagaalkii 1977 ama se dadku siday u dhigaan baa lagu soo gaabiyo dagaalkii 77. saaxiibkay Cabdilaahi Xaaji oo General Samatar waraysi dheer la soo yeeshay markii uu dagaalkaasi wax ka weydiiyay General Maxamed Cali Samatar waxa uu yidhi dhacda xusuus weyn ii leh waxa weeye dagaalkii 77 oo annaga iyo Itoobiya na dhaxmaray. dagaalkaas mid weyn buu ahaa taariikhda way xusaysaa kutub badan bay ku qoran yihiin dugsiyaa la iska baraa al'aana dawlado badan baa dugsiyadooda dagaalka ka dhiga dagaaladaas aynu annaga iyo Itoobiya galay na dhaxmaray. dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal si fiican aynu u qorsheynay si fiicanna aan u maamulnay anigana shakhsi ahaan xusuus weyn ii leh oo taariikhdayda meel weyn ka gelayo guud ahaan Soomaaliya dhan taariikhdeeda dagaalkaas meel weyn ka gelayo maxaa yeelay Soomaali waxay ku muuqatay dadka qiimaha ay leedahay dadnimadeeda iyo kartideeda ayay ku muuqatay. maxaa u sababa waxa u sababa Itoobiya markaa waxaa loo yaqaanay libaaxi Afrika libaaxi geeska Afrika ayaa loo yaqaanay cidina isma lahayn ciidanka Itoobiya ciidan isurtaagi karo ayaa Afrika ay leedahay cidna kuma fikraynin markaa laakiin ciidankii libaaxi geeska Afrika la baxay bisad baan ka soo saaray muddo bilooyin aanan badnayn gudaheed haddaanan loo soo gurmanna dibadda aan looga soo gurmanin oo dawlada waaweyn iyo ciidamo badan coalition ciidamo isbahaystay badan ayaan u soo gurmanna